xisbiga ucid ayaa wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland waxa uu ku eedeeyay inay ka dambeeyeen isku day dil oo la damacsanaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliland iyadoo eedeyntaasna ay xukuumadda Soomaaliland iska fogeysay sida faahinta warkaan oo inoogu soo diray Khalid Ibrahim Cabdi oo halka Somali Channel bixinta uga soo diray musharaxa madaxweynaha xisbiga mucaaridka ee ucid Jamaal Cali Xuseen oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa ku eedeeyay wasiiro aan magacooda xusin inay ka dambeeyeen rag habeennimadii salaasadii toddobaadkan ku rasaasayay xildhibaan Maxamed Faarax Qabiile magaalada Hargeysa kuwaas oo xildhibaanku sheegay inay doonayeen inay kharajiyaan waxa ayaan daraa in la sheegay in dadkii xildhibaanka toogtay ay wasiiro ka tirsan dawladda xukuumadda ay guryahoodii joogaan oo imika lagu badbaadinayo runtii waa dhacdo ugub ku ah Soomaaliland oo markii ugu horeysay taariikhda xildhibaan la soo doortay golaha wakiilada ka tirsan magaalada Hargeysa dhexdeeda inta lagu toogto oo waliba la yiraahdo waxa badbaadinaysa ama ka dambeysay oo far ku lahayd wasiirada xukuumadda Soomaaliland geesta kale wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cabdilaahi Maxamed Daahir Cuukise oo isagu xildhibaanku si toos ah ugu eedeeyay ku lug lahaanshaha falkaasi ayaa shir jiraayad ku qabtay xafiiskiisa sidan isaga difaacay eedahaasi oo uu yiri wasaaradda warfaafinta laga soo abaabulayay oo Cabdilaahi Cuukise kamid ah waxaana kharashka bixinayo hawsha waday wasiir ku xigeenka amniga aad baan uga xumahay subhanallah intii aanu noolayn intii aanu jirnay intii aanu qaranka Soomaaliland hawsha u haynay oo ugu yaraan 20 sanadood oo dalkaasi jirayba naanays iyo kama iyo bareertoona xad nologuma xaman inaan wax noocaas oo kala galno anagu kullayba ka hadhi maayo hay'adaha ammaanka waan u tagayaa waan dacwoonayaa waxaan ka dacwoonayaa xildhibaankani ugu yaraan saaxiib baan ahayn waligeeyo qaaluub balaa isku maana qabanin weerarkan la beegsaday xildhibaan Qabiile ayaan ilaa hadda la ogeyn halka ay ku dambeeyeen laba nin oo xildhibaanku sheegay inay soo weerareen oo midkood warbaahinta la hadlay isagoo madax bannaan Khalid Ibrahim Cabdi Somali Channel Hargeysa xisbiga ucid ayaa wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland waxa uu ku eedeeyay inay ka dambeeyeen isku day dil oo la damacsanaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliland iyadoo eedeyntaasna ay xukuumadda Soomaaliland iska fogeysay sida faahinta warkaan oo inoogu soo diray Khalid Ibrahim Cabdi oo halka Somali Channel bixinta uga soo diray musharaxa madaxweynaha xisbiga mucaaridka ee ucid Jamaal Cali Xuseen oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa ku eedeeyay wasiiro aan magacooda xusin inay ka dambeeyeen rag habeennimadii salaasadii toddobaadkan ku rasaasayay xildhibaan Maxamed Faarax Qabiile magaalada Hargeysa kuwaas oo xildhibaanku sheegay inay doonayeen inay kharajiyaan waxa ayaan daraa in la sheegay in dadkii xildhibaanka toogtay ay wasiiro ka tirsan dawladda xukuumadda ay guryahoodii joogaan oo imika lagu badbaadinayo runtii waa dhacdo ugub ku ah Soomaaliland oo markii